kulankan oo ka qayb galay gudoomiyaha xisbiga wadani ahna musharaxa u taagan xilka madaxtinimada ee Somaliland iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa wuxuu ka dhacay magaalada lagu magacaabo Antwerp ee caasimadda labaad ee wadanka Belgium. kulankan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay jaaliyadaha xisbiga wadani ee Netherland iyo Belgiumka waxaana ka qayb galay qaybaha kala duwan ee jaaliyada Somaliland. inta kulankaasi oo socday ayaa wafdiga uu hogaaminayay gudoomiye Ciro waxay ugu warbixiyeen jaaliyadii halkaasi soo xaadirtay xaaladda guud ee Somaliland gaar ahaan abaaraha ka jira Somaliland iyo waxqabadka xisbiga wadani. waxaana gudoomiye Ciro ugu baaqay jaaliyada Somaliland iyo beesha caalamka in gargaar degdeg ah lala soo gaaro dadka abaaraha ay saameysay. dhanka kalena waxaa halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyay qaar ka mid ah wakiilada jaaliyada Somaliland gaar ahaan xisbiga wadani oo halkaasi goobjoog ahaa. walaalayaal ilaahay Somaliland ha guuleeyo waxaan inoo rajaynayaa in ilaahay dalkeena abaarta ka soo jabiyo. safarka iyagana wuxuu ahaa waa samawada 6 qaaradda Yurub baa lagu marayaa. doorashadii waa la cilaamiyay. dadkiinan quruxda badan ee sharfan ee karaamada leh ee ilaa Holland ka yimi aad baan ugu mahadcelinayaa wafdida Holland ka timi. reer Belgium waxaan leeyahay idina wad mahadsantihiin martigelintiina. annagu haddaan nahay dadkayna daawanaya iyo dadka wadankii jooga xisbiga waxaan ku raacnay inuu xisbigu maal gashado dhalinyarta inuu dhalinyarta wax u qabto inuu wadankiisa u tiro waa xisbiga kaliyaata ee isagoo oo xisbi mucaarid ah madaxtinimo doonaya haddana u tanaasulay dadkiisa maatida ah inaan doorasho la gelin kayba xisbi saas sameyn lahaa waa xisbiga kaliyaata inay waftigu ogaado in Belgium iyo Netherland ay ka jiraan jaaliyada adag oo wadani taageerta oo ku farxi doonaan insha Allah taala mustaqbalka. waftiga qiimihii qaayaha badan waxaan leeyahay welcome to Belgium and Netherlands. qalbi furan gacmo furan ku soo dhawaada. in dekedeena la yimaado oo la dhiso oo la maalgeliyo si dekado badan caalamka loo maalgeliyay. raalaanu ku nahay waananu tanusiraadka ku doonayno. waxa weeyaan war wax cad oo qoran ma hayna nalooma keenin wax cad oo qoran waxa naloo keenay 5 xaashadood baan naloo keenay oo u saxay ninka DB World oo ah executive officer sarkaalka xukuma sarkaalkii dhigiisa ahaa waa cali xor muuseen annagu iskuma haleynayno inaanu deked iibino ama aynu meeshii lightka iibino ama aynu women's clubkii weligeed yaa la taagnayd aynu iibino ma doonayna in meel baloodhayno waxaanu doonaynaa inaanu dadka Somaliland rag iyo dumar dhalinyaro oday islaan qof kasta oo maanta dhiigiisu u dhaqaaqayo inuu wadankiisa u kaco oo u istaago oo yiraaho wadankaygan u hiilinaya hiilkiina san maanta u baahanahay taasaana keeni karta isbedelka. badbaadadii dalkan waa xisbiga wadani waa ogtihiin cid kale oo maanta laga filayo inay dalkan badbaadiso oo tubta horumarka iyo cadaaladda iyo haddii beedmaayo ay ku toosiso waa wadanina xisbi mucaarada weeyaan. xisbiga mucaaradka ahi dhul ma iibiyo dekada ma iibiyo beer ma iibiyo sidii taageeradiisa dibad iyo gudaba idinka la idinka baahan yahay. xisbigu cidna uma xidhna. xisbigu waa Somaliland ka dhahar joogi ka yimi iyo ka baran ka yimi iyo ka laasqore ka yimi iyo ka tukaro ka yimi iyo ka laascaanood ka yimi ka sayrac ka yimi. xisbigu waxaanu doonaynaa inuu qayb ka noqdo. xisbigu waa xisbiga doonaya inuu Somaliland badbaadiyo. waa xisbiga doonaya inuu rajada soo celiyo. marka waxaan leeyahay muwaadin kastoo reer Somaliland waa ku waajib inuu taageero. marka waxaan doonaynaa waa dalkii xisbigii doonaya inuu ka badbaadiyo Somaliland hantideeda inuu badbaadiyo. inuu barnaamij cad oo siyaasi la yimi waa xisbiga quraadada soo bandhigay la hadda oo doonaya siyaasadii abaarta wax kaga qaban lahaa la yimi oo tii dhalinyarada wax kaga qaban lahaa la yimi oo kii tahriibka ka qaban lahaa wax la yimi. cabdirashiid maxamed nuur cabdirashki Universal TV Antwerp Belgiumka.